waxa weeye diiwaangelintii iyo in kaadhkii la qaato dadka reer harana haddii ilaahay ka dhigo sida wanaagsan uga soo qayb gasheen aad iyo aad baanu ugu soo dhaweynaynaa halkan waxaa maraya wasiirkii xanaanada xoolaha agaasimii guud agaasimii ciyaaraha xildhibaankii barasaab ku-xigeenkii xanaanada xoolaha agaasimaheedii wafdi ballaaran baa halkan maraysa wuxuun baanay u socdaan un diiwaangelinta iyo haddii ilaahay ka dhigo iyo kaadh qaadashada barnaamij kaloo maanta loo socdaa ma jiro qof waliba kaadhkiisaasuu waxna ku bedeli karayaa waxna ku ridi karayaa qof waliba ha qaata kaadhkiisa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasiir ku soo dhawow magaalada harada gubata xil abaarta iyo haddii ilaahay ka dhigo waxa dee ka jirana waxaa idiin sheegay guddoomiyaha oo dhulka aan roobku qabanin sanadka xaaladdeedu waa biyo la'aan iyo haddii ilaahay ka dhiga baadla'aaniba way taallaa dee waa aad iyo aad baa u mahadsantihiin kuna soo dhowaada reer haro waanu idin salaannay warkii aanu idiin sidnay waa laydin deeqsiiyey waxaanu ahayn wacyigelin wax dantiinna inaan idinku baraarujinno oo aanaydin odhan cidinnooma sheegin cidinama soo marin haddaan sanduuqii saaka halkan oo lagu imanaya haddii aan la idhaha sanduuqu waa idin imanayaa sidaa guddoomiyihiinma ka warramay weeye sanduuqaana waxaa la doonayaa codkiinna inaad ku muujisaan magaalo qadiim oo taariikhiya baa tihiin oo inkastoo abaar imika idin haysa haddana bableeshinkeedu badnaa waxay yeeli doontaan intii hore isdiiwaan gelisayna way isdiiwaan gelisay inta dambe qaan gaadhay iyo intaan qaadan iyo inta uu ka lumay ee kaadhkii ahayn beryo dhexaasa waxbaa la isku khalkhaldoo kaadharka dadka waa laga ururiyey mooji farsamadaas waxay ahayd dadkii ururiyeyna qaar baaman garanaynba meelay geeyeen malaababa la iibiye qaarkood haddii kaadhkii hore kaa kasal garoobay ood ka quusatay waxaad u tegaysaa qoladan maaragtay guddida waad u sheegaysaa waxaad leedahay kaadhkaygii hore nambarkaasaan lahaa waan waayey kansal gareeya mid cusub ha laysiiyo waa haddaad kaadh haysan oo aad qaadatay hore u qaadatay haddaad kaadh haysatay kaadh labaad waa mamnuuc kii horaa gubanaya kan dambana uu kaa gubanaya labaduba marka seefarka isugu tagaan way isla gubanayaan qof kaadh haystay iyaanu kaadh damba dalban doorkii hore saasaa dhacdo dad badan baa ku kaadhi waayey taana iska ilaaliya haddii alla yidhaah markaynu ka eegno xagga waxqabadka iyo waxtarka insha allah waxba laydinka hagran maayo wasaarad ahaannaka waxa ka dhiman hadday shaqaalihii tahay dawadiina taallo waa la helayaa kolley inamo deegaanka u dhashay oo wax ka yaqaana caafimaadka waa jiraan isduwii gobolka waa nala socdaa taana hoos baa loo eegi dee khayr iyo baanu idiin sidnaa wanaaga idinkuna sidaa ku abshiro oo inta maqanna u sheega inta reeri ku hadhay u sheega dadka xoolaha raacay ha lagu cishatamo cishana dadku halkan ha yimaado qofkii ha la isbedelo qofna xoolaha ha la jiro dumarka haddii aan la yidhaha soo fasaxa guryaha joogo oo raggu ha ku hadho maalin ha qaateen kaadhkooda sidaasaanyo waxtarku wuxuu noqonayaa oo la isugu faanayaa degmo walba ama tuulo walba inta dadeed joogta ee ka codaysa ayaa waxqabadkeeduna kaga badnaanaya ta kale markaa magaaladiinnana u hiliya naftiinnana u hiliya ciddaad damacdaan inaad doorataanna sidaa ugu hiliya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu